Buugga Farsamada Dagaalka The Art of War. Buugga Farsamada Dagaalku waa mid ka mid ah buugaagta taariikhda ah ee ugu caansan, kuwaas oo ka hadlaya istiraatiijiyadda iyo taktikada dagaalada. Buuggan waxaa qoray Generaal Santizu qarnigii 5aad miilaadiga ka hor, isagoo markaas dejinayay falsafada militariga, hogaaminta ciidamada iyo dagaalgelintooda. Buuggan waxa uu kasbaday sumcad aad u weyn, waxaana markii u horeysay loo turjumay luqadda Faransiiska kadibna luqadda Ingiriiska bilowgii qarnigii 20aad. Mawduucan waxaan ku soo qaadan doonaa arrimo gaar ah oo uu kaga hadlay hogaamiyaha ciidanka. Waa maxay arrimaha la gudboon ama ay muhiimka tahay in uu ka foojignaado ama uu ka fogaado hogaamiye walba oo ciidan hogaaminaya. Dejinta qorshayaasha dagaalka iyo go'aan qaadashadiisa waxay u baahan tahay foojignaan aad u sareysa. Inta badan go'aamada ay qaataan madaxweynaha iyo hogaamiyaasha ciidamada ayaa horseedi kara in ay ciidanku guuldareystaan. Haddaba Santizu waxa uu soo jeediyay qodobo muhiim ah kuwaas oo la doonayo in hogaamiye walba oo ciidan hogaaminaya uu ka fogaado. Arrimahaas waxaa ka mid ah 1. Weeridda ciidamo 10 jeer ka badan ciidankaaga adigoo aanan dejin taktikadii ku habbooneed oo aad uga hortagi lahayd ciidankaas. Sababtoo ah arrintaas waxay keeni kartaa in ay ciidankaagu kala firdhadaan oo kala yaacaan. 2. In aadan ciidankaaga madax uga dhigin sarkaal aad filayso inuu amar diido samayn doono. 3. Siinta ciidamada tababar liita. Tayada iyo tababarka sare ee ay leeyihiin ciidamadu waxay astaan u tahay go'aaminta guusha dagaalka. Marka uu ciidanku tababarkiisu hooseeyo ama khibradda uu leeyahay dagaalku ay hooseyso, waxay noqon kartaa in uu ku fashilmo goobta dagaalka. 4. Khilaafka u dhexeeya saraakiisha. Khilaafka u dhexeeya saraakiishu wuxuu soo dedejin karaa in uu dagaal ka dhex qarxo ciidamada dhexdooda, arrintaas oo wiiqi karta awoodda ciidanka. 5. Daciifnimada hogaamiyaha. Marka uu hogaamiyuhu ku fashilmo in uu qaato go'aamadii ku aadanaa ama go'aamadii khuseeyay ciidamada uu madaxda u yahay. Go'aamadaas waxaa ka mid ah howlgelidda ama isku dubaridda ciidamada, iyo sidoo kale xilliga ciidamadu ay weerarka qaadayaan, xilliga ay dib-u-gurasho sameynayaan, nooca taktikada ay ku dagaalgelayaan iyo wixii la mid ah. Qodobka 6. Inuu hogaamiyuhu qiimeyn waayo ama inuusan awood u lahayn inuu qiimeeyo ciidanka cadowga ee ka soo horjeeda. Markuusan awood u lahayn hogaamiyuhu in uu qiimeyn ku sameeyo ciidanka ka soo horjeeda ee cadowga, taasi waxay keeni kartaa in fashil dagaal uu dhaco. Meelaha muhiimka ay tahay in uu qiimeyn ku sameyn karo hogaamiyuhu waxaa weeye nooca hub ay isticmaali karaan cadowga, taktikada ama nooca taktiko ay ku soo dagaalgeli karaan, meelaha ay ku xoogan yihiin, meelaha ay daciif kula ku yihiin iyo wixii la mid ah. Khaladaadka ay galaan hogaamiyaasha ciidamada. Xilligii dagaalkii 1aad iyo xilligii dagaalka 2aad waxaa aad u soo aanbaxay khaladaad waaweyn oo ay galeen hogaamiyaal ciidan, kuwaas ay taariikhyahanadu ay ku qoreen buugaagtooda. Khaladka 1. Feejignaan la'aanta hogaamiyaha. Xilligii dagaalkii 2aad waxaa in badan dhacday in hogaamiyaasha qaarkood ay weerar qaadeen ayaga aan hubsan awoodda ciidanka ka soo horjeeda iyo dhuufashada ay ku jiraan. Santizu buuggiisa The Art of War waxa uu ku leeyahay hogaamiye walba waxa laga maarmaan ah in uu ogaado ama uu yaqaanaba meelaha uu ka daciifsan yahay cadowgiisa. Hogaamiyahaas marka uu yaqaano meelaha uu daciif ka yahay cadowgiisu, waxa uu abaari karaa bartaas si uu u ilaaliyo ama uu ciidamadiisa uga fogeeyo khasaaraha soo gaari kara. Laakiin marka ciidanka aad ka soo horjeedid aad garanayn meesha aad ka abaaraysid ama meesha uu ka daciifsan yahay, taasi waxay keeni kartaa in ciidankaagu uu wajaho qaybta uu ku xoogan yahay ciidanka cadowgaaga, sidaasna aad ku guuldareysatid. Markaas waa muhiim weeye in aad taqaanid meesha uu daciifka ka yahay ciidanka cadowgaaga si aad u yareysid mar walba khasaaraha soo gaari kara ciidankaaga. Qodobka 2. Waa khiyaameynta hogaamiyaha ciidanka.
marka qaarkood waxaa dhacday xilligii dagaalkii labaad in macluumaad khaldan ay soo dhiibayeen wadamada qaarkood. Macluumaadkaas khaldan muhiimadoodu waxa ahayd in saraakiisha ciidanka ay kasoo horjeeda in ay ku khiyaameeyaan oo ay taatikadii iyo go'aamadii dagaalka ay ka bedelaan. marka hogaamiyuhu ciidanka helo waa laga maarmaan in uu hogaamiyuhu garwaaqsado in ay jiri karaan basaasiin iyo sirdoono ee wadamada kasoo horjeeda ay leeyihiin, taasna looga baahan yahay inuu wadatashi ka sameeyo, inuu macluumaadkii meesha ay ka yimaadeen saxsanaantooda waxaas in uu hubiyo. waa arrin laga doonayo si aysan halaag u halaagsamin ciidanka uu hogaaminayo oo uusan ku dhicin god uusan marka hore ku tashan.